barnaamijkeennan in aynu ku soo qaadano qaybtan internetka oo ciwaankiisu yahay ama magaciisu yahay internetku haweenka ama internetku bulshada dib weyn buu ku hayaa haddaba waxaan u kurgeli doonaa internetku muxuu yahay bulshaduse sidee uga faa'iidaystaan inteeba isticmaasha marka boqolkiiba loo qaybiyo hadda waxa uu isticmaalkiisu marayaa 99.99 haddaba barahaasi adduunka adduun weynaha barta internetka dadka isticmaala qaabkeebaysa Soomaalidu ay uga faa'iidaysataa haddii aanad waxaan doonayo ii fulinin sirtaadan baraha la isku arkay iyo Facebook iyo internetada iyo waxaan aan ku faafinaya kuwaasna had iyo jeer marka sidaas oo kale ay u dhaqmayaan waxa soo kale ninimo maaha dhaqan maaha anigu waxaaba igu dhacay anigu iska joogo aniga noolo kula hadlaya in baraha internetka iyo Facebook la geliyo jawaan oo dhintay halkan ka riix haya oo macal wariyaal laba soo xidhiidhaan oo yiraahdaan war miyaad nooshay mise waa dhimataan war ma waa nool oo leeyahay maxaad ku cadaynaysaa inaad nooshay de waa aniga kula hadlaya de wala rag maaha kuwaasi rag in lagu tilmaamo maaha dumarna oran karmayno dumarka ma ceebiyo hadan dumar ku sheego marka dumarna maaha ragna maaha way u dhaxayaan magaca ha loo soo helo وحاجة الله وابكن صوران ولا إنه أجنو internetka ها adigu maxsad u isticmaashaa qaabkeedu uga faa'iideysataa wallahi anigu si aan uga faa'iideysto horta anigu badii aad ma isticmaalo waxaan jecelahay telefoonka inaan qabto oo diro wax aan ahayn ma isticmaalo haye waayo waxaan u isticmaali waayay wararkiisa badan dabeedna waxaaba la siiri adoo iska xidha ayaa ku dhaanta haye qof aan dhiman oo la leeyahay uu dhintay haye qof aan dhimanba oo la leeyahay uu dhintay oo la soo dhigayaba qofkii oo dhintayba haddana bari ka maalin noqonaya qofkii nool haye waa waxyaabo la yaab kalaan ku arko sax waxaad ku arkaysaa qof aanu aragba ama jecel ama odhanaya waan ka helaa hadda mabuu aragba dabeedna qoraal buu ku isticmaalaya haye waxaan leeyahay qofka waxaa samaynaya ama nin mas'uula qof ataagaya cid kasta baan noqday shakhsi ataagaya de marka hore waxa weeye war qofka dadnimadiisa iyo qoomiyadiisa horta de ataagina weerareen marka xigta dumarku waxa weeye waa walaasha waa hooyada waa inantaadii uma baahna maanta marka fadeexadeeda inaad muujiso waxay la tahay bal horta in internetka umada laga wacyi geliyo oo sida looga faa'iideysanayo bal adduunyada kale say u isticmaashay umadeeni barato waxaan u maleynayaa malaawna inagu yara cusub yahay kullu wuxuu markuu dadka ku cusub yahay aan aqoon fiican loo lahayn dhibaatooyinkooda leeyahay raggan kayba balka waahay waxaan ka suurtoobaana haday waana tahay haday ilaa walaashi bay ku dhacaysaa gabadhiisa ku dhacaysaa intuu ku maqayay intuu inan sawiradeeda isu geeygeynaya ama xumaan ka samaynayo hada walaashina mid kala ku maqnaanaya waxyaabaha aan aad ula fajacaan rabayna jaaniskan ka faa'iideysto waxaan arkay website-yo la sameeyay oo lagu rabo in lagu publish gareeyo gabdho Soomaaliya sidaasa andan markaad kili gareyso website-kiba tigaysaa yaani dad gabdhaha sawirradooda la soo dhigaya oo yaani waxyaabaha soo kale ifan haddii arsaaq helayaan waxaas arsaaq ma والله internet wada labada dhinac buu leeyahay dhinac xul iyo dhinac fiican waxaan jeclaan lahaa inay dhinac fiican isku dayaan aakhirada u tulaan isla markaa iska daayaan waxyaabaha waliba been abuurkee ribada oo kuwa ugu sidalana qof bilaadan marka la ribeeyo ceebaan lahayn kada laga saaro kambani marka la ribeeyo wuxuu dhamisay been noqonaya marka waxaan jeclaan lahaa dadkaas inay ka waan joogaan annagu waxa weeyaan shirkadahaana waa ku dhiirigelinaya dadku inay aakhirada u tulaan واسي سعودي ولا حول يربى الله مالي وناكسر هو أجا قلال markaas sagal adigana aad iyo aad baan ku salaamaya hadaad garatay waxaan adigoo gabadha inaad fahamto inay waxaan fawaaxish tahay inay ceeb tahay inay inanta ku ceeb tahay inay ka sameeyaan ku ceebtay aad fahamtay isu xil saartay waxa weeye marna waaxid waad mudan tahay dab aad falayba ubadkiisa go'ondiyo dumar shidan ku noqoto gabadhe ku dumisay ninkaynan magayda
قل قنينكم مالي قراع كغدانيستو